بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبائبنا في الله دمان هلك وحن كسلام يا ضد كل شقية أورك سمفلك يا توفيق. أنا بقى ما أنت ودن ما ملكي أورك سمفلك يا توفيق وحن هلك كعدينينا هند عدوش عارق ومدبدنا لسه شقينا يسي إن أن أورهان كشوشنا شقادي أورك إن لشقينا يسي sababta oo ah waxyaabo u khaasa ururka oo mataqaana sharci darro ku ay la sameeyo darteed aanu uga joojinay waxaan jeclaan lahayn inaan sida ay naloo ogaado inaan laga bilaabo maanta bisha 11aad 2017 laga bilaabo saacada hinda inaanay ururkan nagala shaqaynaynin haddii ilaahay yiraahdo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. maanta halkan waxa ku dhan ururkii samafalka ee tawfiiq intayadii maxaan ku leedahay wadeenada ahayd oo ay walaalihiin dawladnimada naga dhex maqan tahay waxaan maanta idin ogeysiinaynaa in badan baan halkan idinku ogeysiinay annagoo dad wuxuu soo taralay inta codkayga maqlaysa afkayga ku hadlaysa haddaba intii nagu xidhnayd ee ururka samafalka tawfiiq meel kastoo joogaan dalka iyo dibaddaba waxaan maanta shaqadii ka joojinay walaashii hinda cadoosh aare taasoo maxaan ku dhahay jebisay kriteeriyadii uu ururku lahaa taasina waxay dhigaysaa in qofku marka uu maxaan ku dhahay sharciga jabiyo in maxaan ku dhahay laga joojiyo shaqada marka waxaan idin ogeysiinaynaa in maxaan ku dhahay xubnihii kale ururka ay weli joogaan shaqayna ururna uu furan yahay hindana booskii maxaan ku dhahay ka joojiyay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. xubnaha iga horeeyay baa soo dhameeyay hadalka inta cadoosh aare oo ka hayd sargaalad ururka samafalka tawfiiq si ay soo sheegeen saraakiisha ururku shaqayntii ururka in laga joojiyay qof kastoo agmara sharciga ururka u yaalana maxay hayday una sii wadi doona shaqada maamul iyo ku hooseeyaba haddii uu jabiyo xeerka u yaala iyo qawaaniinta ay ogyihiin kolkaa qof waliba hadduu agmaro in laga joojinayo insha allah hindana maxay hayday aan maanta kaga joojinay wada shaqayntii ururka ay la shaqaynaysay waxaan leenahay dhammaan dadweynaheena ku xidhnaa sidaa inaad noola socotiin baan ayaan maxay hayday ogeysiinaynaa aad iyo aadna waan iigu mahadcelinaynaa aad iyo aadna maxay hayday waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ugu sheegaynaa hinda inaan ka joojinay wada shaqayntii ururka samafalka ee tawfiiq sababad gaara siday usoo sheegeen saraakiishii igu horeysay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.